questa ora. كسر نقاط دواء وهم كل شيء محسوسين وكنا daawiye xaqiijiye agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa 15 qof oo dhaawaca oo laba kamid ay dumar yihiin oo la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa laba kamid ay dhinteen halka 13 ka dhaawacana saddex kamid dhaawacoodu culus yahay dadweyne gadoodsan ayaa faras magaalaha iyo jidka halbowlaha oo ah ee bartamaha magaalada Hargeysa waxa ay ku gubeen taayiro iyagoo jidad kale oo magaalada ku yeelana dhagaxaan ku xidhay waxa dadkaasi cadhaysan ay dab qabadsiiyeen hal baabuur oo Toyota xajiyada ay lahayd wasaaradda maaliyadda ee Somaliland iyadoo aan cidi waxba ku noqonin taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland oo aanu la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday in uu wax tafaasiil ka bixiyo dhacdadan iyo khasaaraha soo gaaray dhinaca booliska inkastoo wararka qaar ay tilmaameen in 5 askari ay dhaawac yihiin sidoo kale waxaan isku daynay in madaxtooyada Somaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda labadaba aanu xiriir la sameeyno hase yeeshee noomay suuro gelin kadib markii ciidamada ammaanku ay diideen in loo gudbo dhinaca madaxtooyada Khadar Maxamed Cakulle Universal TV Hargeysa ما لا عدس بهذا وحن عقل ملك ولا كسو جاري حركاس كور ما يساورين هي دول حبحبري حركو جسر يا حركه ولا ما ليش كده يا مرة لا قصة مرة
غير بس شو تمام انا استاغ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اجارنا جبيو قال الله اكبر الله اكبر وزير جمالية مسترعونة شراب هكون تعميراته كده جاري سالو إلى معاون كنا بدقلين كوريكا aku taamila qaato sida loo gubay gaariga jiitida maaliyadda isagana sidaas lagu wadamay حاضر رمشك حق هورك وشرك ايه نفتوك هذا والله ولا ما خلاص هاي هذا على الرياضي هذا حق ولا يقلي ما هدي سن ولا بنان كاس تاعي ما كده حسيده بس توقع ور سرعه هو سيدي مره الواحد شنو هو سوق شيء صار والله شنو قال له ولا كنت تقول له بس كده مش راضي تقول يا markaad sheey guriga inta doonto guriga wallahi warar awr artaka ay ay